komishineerka booliska gobolka Doolo ayaa ku wareejiyay taliyaha booliska gobolka Mudug Puntland ee Soomaaliya gaari laga soo dhacay iyo laba maxbuus. Wareejinta gaarigan waxa goobjoog ka ah gudoomiyaasha gobolada Doolo iyo Mudug. Gaarigan ayaa ah nooca loo yaqaan xaaje isla mar ahaantaasna gawaadhida aan xabadu karin lagana leeyahay xafiiska maamulka gobolka Mudug ee Puntland. waxaan uga mahadcelinaynaa dawladda deegaanka Soomaalida shaqadan ay nala qabteen oo waajibaad fiican ah runtii iyo degmada Galxamar iyo inta ka howlgasha oo xilli saq dambe ah markaan xogta helay markii shaqadii sida loo baahnaa u qabtay aad iyo aad baa ugu mahadcelinaynaa. waxaan cadeynaynaa sidoo kale inaan labada dambiile iyo gaarigaas la wareegnay waxaan kaloo ballan qaadaynaa inaan waxyaalo badan diyaar u nahay inaan la kala wareegno oo dhanka amniga aad iyo aad baa u mahadsantihiin. gudoomiyaha gobolka Mudug Faysal Sheekh Cali ayaa sheegay in cid kastoo faldambiyeed ka gasha labada dhinac aysan marnaba u suurtoobeen inay ku dhex dhuumaaleystaan ayna sii xoojin doonaan wada shaqaynta wanaagsan ee ka dhaxaysa. salaanka bacdi waxaa mahad ilaahay maanta inaan halkaan isugu nimid si nabadgelyo ah inaga oo shaqada labada deegaan Puntland iyo dawladda deegaanka Soomaalida xagga amniga isugu nimid. arrintaani marka koowaad dawladda deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka Doolo iyo degmooyinkiisa gaar ahaan degmada Galxamar waxaan uga mahadcelinaynaa labada eedeysane iyo baabuurkii ay noo qabteen waa uga mahadcelinaynaa gaar ahaan hoggaanka nabadgelyada oo gacan weyn ka geystay. taasina waxay muujinaysaa dawladnimo xoog leh inay ka jirto iyo maamul haddii Ilaahay ku roon yahay isku dubaridan. annaguna sidoo kaleeto waxaan u nimid inaan gaariga la wareegno waana uga mahadcelinaynaa gaarigana waa nagu wareejiyeen. waxaan kaloo rabaa inaan fariin halkaan uga faa'iideysto dadka burcadda ah ama wax dhaca ama wax dila waxay u tahay cashar hadday dawladda deegaanka galaanna sidaas loo soo qabanayaa haddii ay Puntland soo galaanna sidaas oo kale ayaa loo soo qabanayaa. ma ahan dad Soomaaliyeed baa ku wada nool geyigan dadka Soomaaliyeed oo ku wada nool xuduud kala xirta oo tuu ku dhunto ma yeelan doonaan. arrintan ayaa imaanaysa xilli uu xiriir fiican ka dhaxeeyo hay'adaha gobolada iyo waliba sidoo kale maamulada labada gobol Doolo iyo Mudug waxaana gacanta ku soo dhigay gaarigan hay'adaha amniga ee degmada Galxamar ee gobolka Doolo. waxaan dhowr maalmood gacanta ku haynay gaarigii uu lahaa gudoomiyaha gobolka Mudug oo bullet proof ah gaarigan xabadu karina oo gaariga xaajiyada iyo laba xubnood oo ka soo dhacay gobolka oo magaranaysa ka mid ah iyaguna muwaadiniinta Mudug. maanta marka waxaan ku suganahay xadka centerka ku yaala ee Turdibi xadka gobolka Doolo iyo Mudug ay wadaagaan. halkan waxaan la taagan gudoomiyaha gobolka Mudug iyo hay'adaha ammaanka. marka sida uu komishanku u sheegay waxaan ku wareejinay gaarigii si nabadgelyo iyo magaranaysa xubnihii soo dhacayba oo Galxamar lagu qabtay dhowr habeen lagu hayay. kadib markaan xaqiijinay inay gaariga iyagu leeyihiin isla markaana wax dambi oo gudaheena ka deegaan ahaan inaga ka geysteen ayna jirin kaliya inay ku soo xadgudbeen xadkii gaarigaas oo dhac ahaa. markaan ogaanay in xaqiijin arrinta baarisna ku sameeyeen komishanka booliska iyo hay'adaha sharcigu ayaa waxaan isla garanay inaan ku wareejino gudoomiyaha gobolka iyo hay'adaha ammaanka. sidaas ayaana u dhacday. anagoo ah gobolkii Doolo iyo mas'uuliyiintii degmooyinka ayaa waxaan idinku wareejinaynaa maamulka iyo hay'adaha nabadgelyada ee Mudug ayaa waxaan ku wareejinaynaa baabuurkii laga soo dhacay iyo labadii xubnood ee soo dhacay taasoo laga soo qabtay degmada Galxamar ilaa 3 habeenna gacantanada ay ku jireen. ballanteennuna ay ahayd maanta inaan magaraysaa isugu nimaadno magaraysaa Turdibi ayaa waxaan idinku wareejinaynaa baabuurka furihiisii oo kana labadii xubnoodna waa kuwan baabuurkiina waa kan labadii xubnoodna waa kuwaas waa gaarigii la soo dhacay ee laga soo dhacay maamulka Mudug.